Soomaaliya iyo Somaliland iyagana waan hambalyeynaya speechkii shalay ama karnaqsigii shalay madaxweynuhu oo shirka ka jeediyana waxaan leeyahay wax wanaagsan bay ahayd wal dhamaan leeyahay maanta oo kale maaha maalin macaarid maxaafid iyo macaarid waa maalin maartay garbaha la iswada haysto qarannimadana meel looga soo wada jeedo anigu xisbiga wadani ah guddiisa fulinta ku jira waan hambalyeynaya guusha ay soo gaareen waanu garab taaganahay guusha ay soo gaareen madaxdeenu maartay shalay speechka shalay madaxweynaheena horta aad baan ugu faraxsanahay laakiin waxaan oran lahaa madaxweyne Farmaajo inuu horta wixii hore laga heshiiyay inuu fuliyo waxaan kolba laga noqonayo anigu waxaan u arkaa in Farmaajo doorasho labaad inuu wax ka fuliyo halkan oo doorashadiisii waxaas arrinkeedu inuu socdo baan u arkaa anigu Soomaaliya walaalaheen in wada hadal iyo heshiis fiican in meesha ka dhacdana waan jecelahay laakiin wixii hore looga heshiiyay hadda laga noqdo oo atina fariisi kala la yeesho wixii hore horta waana la fuliyaa si fiican baa socotaa nin walba gartiisu soo dhiganaya anagu gartiina waan soo dhiganay mudane Musabbix insha Allah yani uu ku guuleysan doonaa runtii waxaan oran karaa kulankaas waxa ku muhiim ah oo aad iyo aad ugu leh faa'iido wadankeena Jamhuuriyadda Somaliland faa'iidooyinka ugu leeyahay waxa ugu muhiimsan horta aqoonsiga lagu aqoonsaday inaad tahay laba dal oo siman waxa leeyahay gartaada waa la sheegtaa qof aan gartiisa sheegan aqoonna runtii waxa weeye taas waxay ka dhigan tahay qof baqay cararay runtii dadka meesha maray hadaynu eegno dad badan baa waxay lahaayeen maxaa loo tagay meesha iyo maxaa loo tagay maanta cid ka masuulsan oo oran karno da ahaan aqoon ahaan garasho ahaan dadkii ka baxay Somaliland hadda dhammaantood mid u eegtin waa ummadii aynu masiirkeena ku aamini lahayn ayaa meesha marayay waa arkayseen khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu meesha ka jeediyay khudbadaas oo noqotay mid aad iyo aad meel mar u ah sheegtayna ilaa 1955 ilaa maanta aan joogna waxyaalihii soo qabsamay iyo dhibaatooyinka aynu kala kulmaynay waddanka Soomaaliya oo ugu dambeysay in mar walba balamaha masiiriga ah ee ummaddu wada gasho ay ka baxaan taasina ay tahay qof hadduu ka baxo balamaha inuu ahayn wax jiraba waxaan ugu soo gabagabeenayaa aan leeyahay waanu taageersanahay aad iyo aad baanu taageersanahay waxaanu leenahay kale madaxweynaha iyo wafdiga marayo kalsooni buura ah ayaa shacabka ka haysataan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxaanan aad iyo aad u bogaadinayaa madaxweynaha qaranka oo aan leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay